caawa abaal aanu haynaa oo wax inoo hayo horta adaa caawil cad oo mareexaan inoo hayo dadkuna dhaqamay leeyihiin reeraha Soomaaliyeed iyo hawiye gabdhaan kala qabnaa xidid baan nahay xigaalaan nahay wax walbaan isu nahay dhaqan ugub ku ah Soomaalida taariikhdeeda ayaa meesha ka dhacay caawa dadka dhibaataysan ee halkaa iskugu yimid ee caawa intaas oo qof oo mareexaan nimba qaarad jooga caawa halkaa kugu yimid maryunay waxaan kugu nimid la jecel aan adiga ka qabno way horta waxaan ka rabnaa caawa inaad raaligelinta naga qaadato oo boqolkiiba boqol ah oo ummadii mareexaan ugaas iyo ilaawo iyo luglaabo caawa halkan ku fadhiyo مليون inaad caawa ninkaasi ka mareexaansan tahay oo aan kaaga la jecel badan aan halkan kugu fadhina ninkaas dayuuska ah ee magaceeni iyo sharafkeeni dhaawacay ee adigana ku dhibaateeyay annagana dhibaateeyay waxaan kaaga soconaa caawa aan kaaga soo hoynay oo galiin kaaga nahay inaad horta raaligelinta naga aqbasho annagu dhaqan baan leenahay waxaad naga istaahishana waa garanaynaa mag boqol ahaad nagu leedahay aniga hadda kula hadlaya gabar adiga in adeertaa ilmay dhashay وكرت عرف بان كرت علي قافي عرف بان كرت الماء يقول لا دماشقة يلا دماشقة قابله إلا هذا الماء يجي وانا قاليستا أري حنا ما دحمرين دقن كسومالي أي دقن كمريحان كأي دقن كقفكستو نصب وحجرنا إنساسوي وعرفنا مركز أمانتين عندنا مريحان عاو كون مليوني إن نوقف صنط إن ما أردت هرجلت أنا قاعدته هذا عاو أننا مريحان نوع وعاو بقولوا دكتور نوعي وأسجل نوعي هاي ملك kuwa kalena waxay noo yihiin male marka hadalka intaana badin caawa mareexaan halkaas ku saaran yahay inaad dagaaq bataqana raaligelintaas magtaada boqolna anagu waa bixinaynaa mareexaan haddaan nahay odayaashiisii waxgaradkiisii gabdhihii boqorrada mareexaan way saaran yihiin مليون ay raaligelin boqolkiiba boqol aan caawa geliin kaaga nahay waana ka baxay soo dhawow ugaaskaan siinay hadalka waad mahadsantihiin horta marka hore waxaan salaamayaa dhammaan marti sharafta kor saaran waxa weeye katuuse nabadoon madaxweyne ninka la yiraahdo maxamed cali suldaanka ugaasadda beesha oo halkaa fadhida ayadana royal iyo ugaaska kalena asna waan salaamayaa waxaan salaamayaa si gooni ah oo qaas ah walaashay boqoradeenna مليون روبله مليون waxa weeye waxay mudan tahay inta ragga hadda iga hor oo dhan ay sheegeen ayay mudan tahay meeshan waxa ku dhan dadkii waxgaradka beesha sade daarood baa meeshan ku dhan waxa meesha fadhiya waxgaradkii rag iyo dumarba dadka hoos joogana waa salaamayaa oo waxa weeye inta samaha jecel oo arrimahan oo kale inay wanaag ku dhamaadaan jecel waa salaamayaa inta kalena waxa weeye gacanta bidix baan ku salaamayaa inta markaan ka gudbo anigoo ku hadlaya afka beesha sade daarood waxa weeye malyuunay sida ay raggii hore iga horreeyey odayaasha ay sheegeen waxaan caawa halkan kugu fadhinaa in aan meeshan ku qaadanno xaal iyo xumayn labadaba oo aad mudan tahay qof qalbilaawo ah oo aanan garanayn waxa ay dumarka Soomaaliyeed mudan yihiin wanaagga iyo sharafka ay mudan yihiin aanan garanayn baa kugu qaldama صح caawa waxaad haysaa boqol halaad oo caga ka socota laga bixin jiray ayaad haysaa waxa weeye laba dhinacba waa tahay beelweynta hawiye ee sharafta leh iyo beelweynta daarood ama beelweynta sade na waa tahay arrimahaas waxa weeye say odayaashii iga horreeyayba sheegeen meeshaan waxaan u fadhinaa in walaashay marka hore aan cimaamad baan wadnaa dhaqanka Soomaaliyeed wuxuu ahaan jiray in marka hore golo joogsi la imaado la isku imaado kadibna xaal iyo xumaynta la bixiyo raaligelinta ayaa wax walba ka horeysa horta 114 quraanka cadadiisa ayaan raaligelin waxa weeye cimaamad sharaf leh oo cimaamad ugaas ah ugaaski daarood ayaan horta madaxa ka saaray
waa marka koowaad. Marka labaad waxa weeye qofkaas loo caayi maayo aabbihii dhalay laakiin asagaa wuxuu yahay qof cilaaj ah aan garanayn sharafta ay dumarka leeyihiin qaldamay qalad weliba aan innaba ha yaraatee marnaba laga aamusi karin qaldamay qaladka uu kaa galay dhammaan sharafta waxaa weeye dadka sharafta leh meeshaan fadhiya ee beelweynta Sade Daarood sida afka ay ku hadlayaan waxa weeye kaa codsanayaa inaad na aqbasho naga guddoonto waxa weeye raaligelintan beesha Hawiye iyo beesha Mareexaan Sade Daarood wax weyn baa ka dhaxeeya. ninkan hadda waxa weeye waa nin baxawaadla ninkan kale hadda meesha fadhiyo madaxweynaha hadda ka degaya waa nin bax daaran doollo ah oo waxa weeye waa reer kooshin waa markay sii socoto waxay galaysaa mudulood abgaal halkaasay galaysaa ayaydan waa dad marka kafac xaliimo suufi cali kubdheer baa dhashay kafac dad isa soo dhalay Hawiye iyo Mareexaan oo haddana isdhala oo ah qabaa'ilka Soomaaliyeed labada qabiil ee aad isku dhaxgalay markii qabaa'ilada kala la fiiriyo oo wiil iyo abtigii ah. marka sidaa darteed dhaqankeenni soo jireenka ahaa ee wanaagsanaa tolnimadeenni wanaageenni sharafkeenni karaamadeenni waan wadnaa caawa beelweynta Hawiye ama ha ahaadeen hiraab ama Hawiye ha ahaado ama ha ahaado mudulood ama ha ahaado abgaal cismaan waxa weeye si sharaf leh oo karaamo leh oo waxa weeye anoo taagan baan halkaas waxaan ka siinayaa raaligelin 114 qur'aanka cadadiis raaligelinta kadib sida odayaashii iga horreeyay ay sheegeen kolley odayaal kalena waa soo fuuli doonaan oo beesha ah xaalkii iyo xumayntii iyo waxa weeye gabdhuhu Soomaaliyeed 50 baa laga dhiibaa 100 ayaynu diyaar lana 100 gabdhaha Soomaaliyeed dhaqanka Soomaaliya u yaala ama ummadda Soomaaliyeed ragga markii mag la qaadanayo waxa la bixin jiray 50 halaad oo cagaha ka socota dumarkana waxa la bixin jiray 50 annagu 50 ma wadneen waxaan wadnaa 100 baan wadnaa haddaynu nahay beelweynta Sade Daarood sidaa darteed hadalka waan ku dheeraaday imaamadii iyo waxa weeye raaligelintii in beesha Hawiye marka koowaad ay naga gudoomaan marka labaadna gabadhaas walaashay ah marna ah dumaashaday marna haysa boqolow ina Sade Daarood ah in halkaas aad raaligelin shir iyo waxa weeye midaan mid ka duwan aan iskugu imaano ama bareefad hanoo ahaato maadaama family aynu nahay ama hanoo ahaato meelo kale oo qaas ah arrintaas waxa weeye in aad naga guddoonto insha Allah taala waxaan u sii deynayaa marka boqoradii waa meeshaan fadhida ayaduna ha sii deyso kolley